بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتها بوندا وديال سو dhawaada meel walba joogtaana ku soo dhawaada barnaamijkeena waxaad nagala socotaan Demo Show maxaad kala socotaa abka lagu magacaabo Photolab Picture kaasi oo ah app si xawli ah social media uga socda ama baraha bulshada abkan ayaa sawirkaaga wuxuu u habaynayaa si qurux badan kaasi oo u keysiinaya sawir gacanta lagu sawiray ama kartoon oo kale Facebook markaa sidaa waadedoon qof isbedelay kartoon loo soo ekeysiyay ayaa ka hor imaanaya abkan wuxuu yahay halkee ka yimid wadankeesa iska barnaamijka ayaad ku ogaa doontaa balse falowda commentiga leegta waa xageena leegtuna muhiim ayay noo tahay waa mahadsantihiin abkan lagu magacaabo Photolab Picture ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2010 taleefanada ugu horeeyay ee lagu isticmaalo wuxuu ahaa taleefanka Android-ka bihii ugu dambeeyay ayuu aad u soo shaabaxay Soomaalidu oo kaliya ma aysan isticmaalaynin balse wadamada oo xooliga uga socda waxaa kamid ahaa wadanka Hindiya ugu horeyn waxaa loo maleynayaa abkan inay iska leedahay shirkad laga leeyahay China balse baaritaan ay sameysay dowladda Hindiya ayaa lagu ogaaday in abkan ay leedahay shirkad lagu magacaabo San Francisco oo Mareykanka fadhigeedu uu yahay abkan ayaa 2010 la sameeyay balse waxay intaa ka dambeeyay shirkadda abkan waxay ku waday dib u habeen iyo casriyeyn inay casriyeyso abkan ayaa u taftiraya sawirkaaga si qurux badan asagoo si kala duwan sawirada u soo saaraya waxaa jira abab asigoo kala ah oo markaasi la isticmaalo waxaa kamid ah abka qofka wajigiisa ka dhigaya qof duqoobay oo kale wuxuu ku saadaalinayaa 20 sano 50 sano haatan ka bacdiya sidii aad noqon lahayd wajigaaga oo duqnimo u soo saarin lahaa dabcan dad badan ayaa isticmaalay sidoo kale waxaa kamid ah abka saadaalinaya sanadada soo socota waxa aad qaban lahayd hadii aad guursanayso oo asangalnimada ka baxayso hadii aad shaqaysanayso oo shaqo la'aanta iska daynayso hadii aad wax baranayso iyo hadii aad dalxiis tagayso ababkaas kala duwan aad ayaa Facebook looga isticmaalaa balse quburada ayaa ka digeen inay ababkaas u leeyihiin shirkado aan markaasi sharciyeysnayn kuwaas oo xogtaada kula bixi kara si fudud tusaale ahaan oo kale markaan abka wajigayga bedelaya aan ku dhufto uu wareegayaa adiga ilaa 100 ayuu wareegayaa markaas kadib ayuu ku soo saarayaa wajigaaga waxa uu noqonaya app face ayaa la yiraahdaa shirkaduhu waxay sheegeen xogtaada in si toos ah oo markaasi loola bixi karo maxaa yeelay shirkadda abkan iska leh markii aad u fasaxdid abkan inuu wajigaaga bedelo ama sawirkaaga aad u fasaxdid waxa ay qaadan kartaa xogtaada sidoo kale tan virus ay taleefankaaga uga tagin kartaa haddaba ababka aan isticmaalayno aan ka digtoonaano oo ha ahaadana abki soo baxaba kuwa xiiseeya yaan noqonin وكما سنتين داوشدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته